tan iyo markii sida rasmiga wadamada ku yaala waqooyiga qaaradda Yurub ee Finland iyo Sweden ay cosigooda xubinimo ee ku biiritaanka isbahaysiga difaaca dunida ee NATO ay gudbiyeen waxaa la isweydiinaya habka uu noqon karo muuqaalka guud ee gobolka aragtiyaha duulaan ee ka imaan kara Moscow iyo maamulkeeda falcelinta ka imaan karta xulafada Mareykanka uu hormuudka u yahay iyagoo baqdan culus haatan amniga Yurub uu soo wajahay xulafada NATO ee uu Mareykanku hogaaminayo ayaa diiday inay Ruushka siiyaan wax damaanad qaad ah oo ku saabsan in hubka nuclear-ka aan la geyn doonin dhulka labada dal ee xubnaha haatan ka doonaya gaashaanbuurta NATO ee Finland iyo Sweden sida uu ka dhawaajay ku-xigeenka xogayaha guud ee isbahaysiga difaaca ee NATO waddan kasta wuxuu xor u yahay go'aaminta goobtii nuclear-ka la geynayo ama aan la geynaynin hubkaasi kama hadli karna dejinta qaar ka mid ah xanibaado la xiriira hawl mabda oo hordhac ah oo qusaynaysa tillaabooyinka suurtagalka ah ee uu isbahaysigu qaadi doono sidaasi ayuu u sheegay warbaahinta Switzerland xilli waraysi laga qaaday la sii daayay waddan kasta oo xubinka NATO isaga ayaa arrintan u go'aamiya si madax bannaan haddana ma jirto su'aal taa ka taagan ayuu sii raaciyay laakiin uma malaynayo in xaaladda hadda jirta ay laga maarmaan tahay in Ruushku la siiyo wax damaanad ah oo ku saabsan qaabka ciidankeennu u fariisanayaan gobolka ayuu ku dooday culayska iyo cabsida ugu weyn ee Putin waxay tahay in gobolka la keeno hanaanka difaaca taas oo u arko inay tahay mid wax badan ka tari doonta duulaanka reer galbeedka uu dalkiisa kula jiro balse Moscow marar badan arrintaasi waa ay ka dagaal gashay dhawaanahan waxaa socday dadaalo Putin waxa uu dhisayaa cutubyo gaar ah oo loo diraya dhinaca iyo gobolada Sweden iyo Finland ujeedku waa in si togan oo muuqata iyo si taban oo aan maangal ahaynba loola socdo dhaqdhaqaaqa galbeedka ee gobolka iyada oo Putin maamulkiisa wali uu ku jiro dib u qaabaynta iyo wax ka beddelka duulaan weerarka dalkiisa kula jira Ukraine haddana docda kale micnaheedu waxay ka dhigan tahay inaanu mooganayn dareenadiisuna ay jiraan docda kale ee waqooyiga Yurub oo haatan qorshayaal uu arka inay halis ku yihiin ammaankiisa ay ka socdaan madaxweyne Putin ayaa marar badan sheegay isagoo ka qayb galaya shirar amniga quseeya oo ka dhacay Moscow in haba yaraatee Ruushka uusan cabsi iyo culays u arkaynin cagajuglaynta caalamka ka imaanaysa taa beddelkeedana uu leeyahay ahdaaf cad iyo qorshayaal qaabeynaya qorshaha amniga qarankiisa si kasta oo reer Yurub ay isugu dayaan inay waxyeeleeyaan qiyamka qarankeena taa micnaheedu ma ahan in Raashiyaanku ay u nugul yihiin qaadashada handadaadaha ka imaanaya cadawga Raashiya